la meesha bahdilaad ba ka dhacday dad badan oo Soomaaliyeed bay soo wacay oo yiri waxa sheegayso waxa kama jiraan maanta meel aragtaan in madaxdii Soomaaliyeed lagu bahdilo magaalada Addis Ababa halkaas oo shirka midowga Afrika uu ka furmeeyay warbixin badan baan idii hayaa madaxweynaha waan la talinayaa tala soo jeedin baan u siimanayaa aragtiyada fayoob ee ummadda Soomaaliyeed ka guuxaysa ayaa madaxweynaha la wadaagaya soo dhawaada muuqaalka si shargareeya qaabka wax u dhaceen iyo qaabka madaxweynaha iyo wafdiisa loo bahdilay ayaan idinka warbixin doonaa Soomaalidu waa inay wax fahantaa waa inay dhagaha furtaa waa inay wax maqashaa waa inaysan arrimaha internalkooda gudahooda kaliya aana ku mashquulin arrimaha kale ee externalka ee arrimaha dibadda waa inaad ku mashquushaan waa inaad fiirisaan waa inaad daawasaan see adduunka kale sidee ugu nooshiin wana fiirisaan warbixin baan idin siinaya insha Allah si shargareeya muuqaalkan Melder Garcia Melder haddii aan xaqiiqada iyo runta bandhigo micnaheedu ma inaan Xasan nacabahay micnaheedu ma inaan Xasan diidanahay micnaheedu ma inaan nacab gooni Xasan u qabo laakiin waxa way fact taal dunida inaynu aragno oo maqallo weey hogaamiyaasheenu waxyaabaha ay ku kacaan kii wax wanaagsan inoo sameeyeen waa alxamdulillah kii wax xun sameeyeen waa inaan ummadda u badhigno weey waaye wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxay soo saartay haddeer war qoraal ah oo markaas ku cadeysay in lagu bahdilay habmaamuuskii ay qaranka Soomaaliyeed u lahaa in Itoobiya ay bahdishay oo habmaamuuskii qaranka Soomaaliyeed u lahaa war si shargareey war qofka Soomaaliya shargareey qofka Soomaaliyeed dhagweyna suu muuqaalkan u gaaro wasabada ugu shargareey guruubada ugu shargareey meel walba ugu shargareey Xasan Sheekh Maxamuud jilicsan haatay madaxweynuhu waa jilicsan haatay oo aan siyaasadda wax ka faahsaneen oo aan ka baasitigeeda lahayn war waxyaabahan la yaabana way warrikan 5 sano horena madaxweynuhu soo ahaa 5 sano waxaas la casab buu ka bartay warriga maxaa ku dhacay war madaxweynaha Masar baa laga hayaa war madaxweynaha maxaa ku dhacay maxaa u bahdilay madaxweynaha war dal dhan buu madaxweynuhu yahay war shacab taageer buu madaxweynuhu yahay war dhul khayraad loo yahay madaxweyne ka yahay war dal hodan oo madaxweyne ka yahay war dadkiisu islaamiyiin madaxweyne ka yahay war dadkiisu ay waxa weeye quluubtoodu ay ka midaysan yihiin difaaca dalka ayuu madaxweynuhu yahay hagu madaxweynuhu ka bahdilan yahay war waxa la qaadan kara maaha Soomaaliya waxa dhacday shalay waan idin sheegay in la bahdilay madaxweynihii waani idinka warbixiyay garoonkii waxa ku soo dhaweeyay shidde baa ku soo dhaweeyay oo gudoomiyaha bangiga Itoobiya laga dhigay hadda wasiirka maaliyadda ma halkaas bahdilaad halkaas ka bilaawatay hatta ka hor wasiirka sida war saxafadeedka ay ku soo saareen wasiir dawlaha arrimaha dibadda ayaa tagay isagana waa la bahdilay laakiin isagu uu qarsaday bal dadka waxaan rabaa inaan idin sheego bal ilaahay baa ku dhashay balkaadii waxa rabaan idin sheego bal ka wasiir dawlaha nijaas haaday oo nagal haaday way Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ibrahim Masar Xamse Cabdi Barre imika xilka ka qaado bal haddii isaga lagu bahdilay muxuu madaxweynaha ugu soo lugooy muxuu runta ugu sheeg waay isagoo wasiir dawlaha hadaa meeqaamkiisa maanta la marin madaxweynihii qaranka inuu bahdilo agfiiri bukaha wasiir dawlihi meesha laga bahdilay maxaad madaxweynihii qaranka ugu soo lugoys ma tiraahdo madaxweyne anna waa la bahdilay adigana ayaa lagu bahdilin qaranka asaanta qaranka la bahdilay dib u dhig maxaad ugu waraweyd arinta qaybta la taala xawey shalay shidda soo dhaweeyay madaxweynihii waan idin sheegay meeqaamkii hamaamuuskii ugu hooseeyay baa lagu soo dhaweeyay qaybta taalo xawey maanta shirki wata laga qayb galayay hotel la deganaa hogaamiyaasha hotel ay deganaayeen madaxweyne kasta gaari buu leeyahay protocol gooni uu leeyahay ciidan staff gooni uu leeyahay oo hamaamus la mariyo madaxweynayaashii kale ee Afrika ninkasta gaarigiisa baa yimid ninkasta gaarigiisa baa galbiyay xarunta midowga Afrika u aaday madaxweynaheeni waxa la yimid taqana kaliya ma bixi kartid qof xabsi ku jiro kale ma bixi kartid staafkii iyo bodyguardkii dhexdoodii Soomaalidii xabashadii baa qoriyaha isu qaatay oo hubka Barcelona isu furtay oo Barcelona isu cabaystay ma bixi kartid ma barsaa bayso minu madaxweyne qaranka hayn minu maamuus lahayn inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa madaxweyne qaranka
Soomaaliya markii dambe Ismaaciil Cumar Geele uu la hadlay gaarigii Ismaaciil Cumar Geele ee geeyay maxaa ku sheegaa xarunta midowga Afrika Ismaaciil Cumar Geele ka soo laabtay ba madaxweynaheena u yimid oo qaaday waliba waa dirqi baa lagu saaray dirqi hay'adti baa lagu saaray madaxweynaha alaxna waxa weeye bahdil meeshii ugu dambeysay weeye madaxweynaha la gaarsiiyo waaye xarunta midowga Afrika la tagay bal ninka dhamaa hadduu aragti leeyahay oo siyaasi yahay diyaaradda khaaska madaxweynaha Soomaaliya leeyahay booli bay fadhiday hadduu arkay isagoo aan hotelkiisa ka bixin in bahdilaadii ay ku bilaabatay muxuu go'aan cad u qaadan waayay ma yaqaan dibaa bahdilaadii dadka maxaa ugu sugnaatay mu garoonka igey dhaho muddo soo duulo shirkadooda iyo Afrikadooda iyo futuub cidkooda muusiga yimaado ma sabeen gaarigii Ismaaciil Cumar Geele qaaday meeshii midowga Afrika la isugu tagay meeshii waa afka furtay madaxweynaha Ethiopia badayda ka yeeli mayno way bahdishay Ethiopia maamuuskayga ma sabeen Ethiopia fulaan Ethiopia war waxaasi waxba sheegi mayso ninku markuu maqan yahay oo deegaankiisa tago oo dhulkiisa tago busmacad leeyahay inaad marti u tahay taas loo fiiriyo حتى مدوغ أفريقيا حتى كمان فرعلين هل وضن وكفر عليه أو كهذا كسر شيء أو كحما ما جرت سببت أول إثيوبيا مرتين لوي مركا مدحوينه بهدل باكو دعي قرانكي وكسر بحي هوتيلكي وكسر لابتي إمك أني دلها اللي يحكسوا جاي إنترنت بولي ترسل أي بربسوا جاي ديارتي ما هذا كعيسى مدحوينه وعريسية وحناقي والله حتى وحلا شيء إنه قمي وصدي وسهدان مودي إثيوبيا حبشوا وما إماتين مدحوينه الصوماليين دوي مركا سؤال سويدين مدحوين تدك سويدين يسوي محققون وارن تدك شعب كنوع سويدين يم ما حد كدونت محققون وارن ورين بدك كو هيستا او دولكا هي قيب هيستا او دونا انو دولكا هي خوق قبسدو او بدا يرتو انو waxa weeye dal ku leeyahay xoog qabsado oo doonay inuu arimaha gudaha kala qaybiyo dowladaha ay kala qaybiyo sababa dalkiisa ugu tagtay oo dowladda midowga Afrika uga qayb galay shir absolutely abwey dadka waxa weeye waxaan maqlaysiin meeshaasi waa wada ulo qaata malaha iminka bal wasiirkan dowlahan hadda koor lagu bahdilay ad sababa muxuu xoolaha ugu qoriyay miyaan mishiin Soomaaliya haddii uu wasiir dowlihi la bahdilay inuu madaxweynuhu ku soo hogaamay meel isaga lagu bahdilay miyaan khalad ahayn miyaan mishiin ahayn miyaan ujeedo gaar laga lahayn inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa Ethiopia ma taabana raacday gacaba naga yeedhay Soomaaliya gacaba waliba Xasan Maxamuud ka yeedhay dowladdiisa odagani bahdilaad oo u dhashay Kenya walaga uu sujuuday meedkii Kenyaatiga gaar raac waa odaga waa ku fiican yahay sida loola hadlay ma yaqaan qabkii Soomaaliyeed buu dilay farmaajo inuu ka nimid oo madaxweynaha Soomaaliyeed oo saga ka hadla oo qable cid mucaarasanaad laakiin madaxweyne farmaajo waxa nin qable oo waxa weeye Soomaaliya gaalaba waxa weeye u kala turjuma oo dhaano qaran Soomaaliyeed baan nahay waxa weeye oo aan qaadan aqoonsi oo aan bahdilaad qaadan حوي absolutely عيب كنت مدحوينه ما انت بهدلات سنه كدعده وانا حاليا انا قلت لي وركتشو وطاو كدعده كغور حسن waa shaqaystay bahadalaad ay qacda ka yeedhay kago Soomaalina ceebeysay beesha caalamka ceebeysay waxa weeye hadii la guuray ee kula macaamilisay madaxweynuhu waxaan ogaaday wuxuu Ethiopia xiriirka ugu jiray waayay xog baan soo helay Ethiopiaanku waxa xiriir fiican la Imaaraadka madaxweynuhu Imaaraadka 5 milyan bishi ka qaataa oo isaga khaas u ah 5 milyan haddii Ethiopia uu xiriirka u jiro si aydan isku dhicin Imaaraat ayuu 5 milyan buu dhaafsaday dalka Soomaaliyeed 5 milyan buu qaranka Soomaaliyeed dhaafsaday 5 milyan buu dowladnimada Soomaaliyeed dhaafsaday 5 milyan buu dhaafsaday bardi iyo barigii Soomaaliyeed Muuse maanta waa baashalaya Muuse bixi iyo jabaad argagaxsadaheed ee taalka darneed ee khaatuma soo burburisay ee khaatuma qayb maxaabiis ka dhigtay qayb ciid hoos martaa ka dhigtay iyo qayb hubkeeda furato maanta dhooshi ka qoslaya Muuse maanta dhooshi ka qoslaya sida loo bahdilay dhooshi ka qoslay isaga waxa weeye isagu waa shaqadiisa weey waa guushiisa weey taas waa taa marka waxa weeye war qabyaaladu wax wanaagsan ma Xasan hadii qabyaalada ku taageeraysid yaa dad reer ku taageeraysid Xasan waka
waxaan maqli jiray ayax tag ee la reeb xasan waa tag hadeer wata bahdilaadkana ku soo qaadanay Soomaali oo dhan bahdil hawiyana ma bahdilin abgaal ma bahdilin Soomaali magaci Soomaaliyeed u bahdilin kaaga ku taageeray qabiilkan ka hadlaya qabiil xama sheego annaga waxaan taageero waxa weeye waxaan taraya waa hogaamiye suuban hogaamiye fiican Soomaali u adeegaya qaranka u adeegaya danta dalka u adeegaya ba annaga muhiimadoodu tahay oo qab leh oo aan hoos fiirin kor fiirinaya taasoo u baahan adigana qabiyaal xun oo hoosa hadii la kuurayay Allah zorto farmaajo nin marxaan oo daaro sax Soomaali hogaamiye Soomaali waa ninkii ugu wanaagsanaya xagga qabka ha daliilka wax iska lahaado daliil kale wax iska lahaado anigu waliba daliil badan baan u qabaa farmaajo daliil badan baan u qabnaa laakiinse qabka markaynu ka hadalno qab Soomaali qab wala muwaadin waa wadanina waa waxa kaliya ninka lagu daliil karo away danta reerkiisa ma aqoon ama daaro dheh ama marxaan dheh danta reerkiisa uu ka shaqeyn jirin Soomaali uu buuta ka shaqeyn jirin laakiin waa muwaadin waa nin hadii la kuurayahay qab Soomaaliyeed iyo hanaanka Soomaaliyeed iyo qabkeenu Soomaali ku leeyahay adduunka ninkii soo celiyay way kii ku farxay kii ka naxayaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un xasan halkaas way hadaba talan soo jeedinaya daa xasan ha loo geeyo xasan jabka waa ku weynahay inay ku dhacday ceebtaana Soomaali way u soo hiday dhiiqada waa ku darjidnaa abgaal la kuma jira hawiyana kuma jira kaliya Soomaali oo dhiiqada ku jirta madaxweyne ha isbahdin ilaahay baa ku dharshay ummadda Soomaaliya ha bahdilin oo annaga hana bahdilin oo qaranka ha bahdilin oo dawladnimada ha bahdilin oo waxa weey hanaanka dawladnimada Soomaalida ha bahdilin marka xamal ku soo laabatay talaabooyin qaad dhammaan 10 kun askari ee Itoobiyaanka ay Soomaaliya ku sugan wadanka ka saar ha ka baxaan wadanka gee hadii la kuurayay dalkooda ku celi dalkooda ku celi waa qodobkaasi qodobka labaad dhammaan xiriirka u jar Itoobiya xiriirka u jar waxa tiraa Itoobiya xiriirka oo safaaradooda u cayri ku laabta magaalada ku dhar ku laabta dalkiina soo hagaas lama diyaaradda Ethiopia Airline Ethiopia ku leeyahayna hawada ka saar dhammaan deegaanka Soomaalida oo dhan iyo magaalooyinka Soomaaliyeed iyo garoomada Soomaaliyeed hal garoon ay ka soo degi kartay qadka ka saaraba hawada gooyadana xiriirka u jar ruqsadda ama shatiga ganacsiga kala laabo way idaas waa inta Soomaa arinta kale waxaad furtaa dalkii Soomaali galbeedna fur dalkii Soomaali galbeed ee dhulkii Soomaali galbeed maqan ee dawladnimadeena iyo dadkeena iyo shacabkeena ka maqan fur galkaasna u gudbi maxkamadda adduunka dhulkaas dhul Soomaaliyeed buu ahaa dadkaas dad Soomaaliyeed way dawladnimada Soomaaliyeed oo hamuun qabaan way dhibaataysan yihiin cadow iyo 100 milyan oo xamaaraha oo xabashiya ayaa dul fadhida inta dad sabaysid wallahi oo billahi oo tallahi finta waxa way yeeri lahayd futo ku dhufan lahaa dalka Soomaaliyeed Soomaali galbeed furtay Soomaali galbeed galkooda furtay hadii la ku arinta diyaaradda Ethiopia Airlines xidid safiirkooda ay cayrisid iyo xiriirka u jirtin yaa arinta galka Soomaali galbeed aad furtid wallahi billahi futo ku dhufan lahaa diblomaasiyadda madaxweyne baro mid kale waay wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay waay wasaaradda iyadoo marxaladahan adag ee waxa weey siyaasadda arrimaha dibadda Soomaalida maanta halkan marna ognahay iyo waxa weey faragelinta la inagu hayo iyo dalkan qayb ka mid ah la rabo waxa weey hadii la kuuray in waxa weey la faragashto waay wasaaradda arrimaha dibadda meesha ka maqanta waay wasaaradda arrimaha dibadda ay boska soo banaayeen oo nin wasiir dawladda oo ku bahdilay oo ku qariyay mid kale muxuu ku qariyay hadii sax bahdilay muxuu ku sheegi waay muxuu ku madaxweyne joog سواء كلها كسبان كلها سواء أديس ما نصعد وسارة درب مقعو أنت كلام أود الاستيد لك إثيوبيا كهرمان قاتان واللغية يسيرع وين لك أود السلام وحن أباهن هاي مدحويني قالك ماملك وسمانت أود الاستيد إنه دق وسيب دق عاد أهرجس وأدي إسماعيل عمر قالنا سكاشتان سيدي حدود جيبوتي لو سو قرين لها إذا ما دي صومالي دا ولي إذا ما فدرال لو سو قرين لها إذا ما فدرال لو سو قرين لها سيدو كله إذا ما إساسي قاتمنا إذا ما كله فدرال هتكون حوتين لها أود هذا استعمال أود هذا ما أركتد بروبلم يكون هيستوعي أود قعمها يكون جرته ما أركتد قصر ها قصر المدحوري رواية قصر وكتكتي
أبي ود ديار جرو وان دجال دياره وان دياره كونفلكتيجا أرميه سجودها كتير إثيوبيان كده إنه صومالي كتشيديو أو موسو وان دياره مسكح إثيوبيان إنه تشيديو أو على صومالي قديمه أبي وان وحوي يدي لكوري وان إسقاوي والديار وينو تكلمه سياسة السبب سيسنا وضع أديك محا عرفت أود الستين محا وحوي أتكتب عصنتها محا أود الدشين لا ده محا وسعر ده ما هدبته مع أولاده محا وقولي الصومالي بقولك بسيدات صومالي الربانة أدو ست عضو ومنافقين لا أدو شغل لا ده ملح ورطة حكوشة قالوا رطة حكوشة قلنا صوماليين وبهد الشيء قرنك صوماليين وبهد الشيء دولين وين صوماليين وبهد الشيء هنكي صومالي أي لهينا هنكي الصومالي اللي هنا وبهذا الشيء انت تلام كوسو تشيدي اجلك الصومالي قلبين له اول الستيل له وحوي سفيرك ايثيوبيان كذا عايرسي ciidamada ايثيوبيان dalka aad ka saartid iyo diyaaradda Ethiopia la wadanka aad ka saartid waad ka mamnuucid waxa weeye hadii la kuuro yahay inta taadan taraabin qaadin fashil bad ku imaanaysa abiina wiiga soo socda isaga muuse meel lugahayo u dhow gobolka awda ayay imaanayaan halkaas dawladda military ku soo bandhigaya si toos ah bad loo wareegaya haddaan inta ficil oo qaadana inta soo ficil haddaan qaadana absolutely waxa weeye waa xaalad dalku xaalad adag bugalaya Soomaali maanta waa u maalin madow bay noo tahay aad baan uga xumahay ninkii Soomaali maanta ninka qabiil ku riixaya anuu ma qabataas xasawaani Soomaaliyeed hawiyaha hado waa isla abgal haado laakiin wuxuu huwan shatigii qaranka Soomaaliyeed huwan yahay meel xunbun la galay waana lagu bahdil hadda garoonka booliba ku sugan yahay isoo qamaysanaya wax xanaaqsan buu maanta garoonka booli ku sugan yahay waxa loogu sameeyay waa intuu ka meersanayay waqooyiga Soomaaliyeed inuu si cadaalad oo daacad u wajaho way xasan sheekh maxamuud laakiin uu ka wareegay darbaaxadaas maanta u qoran inay ku dhacdo taasna waa taa Soomaali maanta oo maalin madow Soomaali hay si taagto si dalkeeda ay u badbaadin lahayd qarankeeda u badbaadin lahayd ninka wadanka waxa weey laga qaban lahaa xasan sheekh maxamuud haddaanu sidan hadda wax ku wado aan wax ka badino insha Allah khayr badan Soomaali diyaar garowdo hal diyaar garow insha Allah intaas aan ku soo gabagabeynay khayr badan ma idin insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi